ku soo dhawow channelka galgalan news taabo calaamada guduudan ee subscribe kadibna ku dhufo gambaleerka si aad u heshid mar walba barnaamijyada iyo wararka aan soo gelino galgalan news ad musharaxa ahaydna waa garanaysaa ereygoodii waxa halku dhigoodii wuxuu ahaa waa ku dooranaynaa Daniyow Nadaadi haddana waxay diyaar u yihiin inaad daadisid inaad degmada ku soo dhawaatid degmada xaaladeedu waa caadi wax dhibaato ay kama jidho waxa jira abaar baa ka jidha xilligii guga iyo xilligii dayrta labadaba waa la waayay haddana xaaladdu waxay maraysaa bishii abriil baa mar dhow dhalanaysa xaaladdu waa adag tahay biyo la'aan adag baa dhulka ka jidha xoolihii hadda waxay bilaabeen inay gamashi iyo inay fariistaan oo guri xaafada ka kici waayaan ceelashi gaari waayaan iyadana ilaahay baan waxaan ka baryaynaa inay raxmad khayr qabana siiyo adiguna waxaan rabnaa inaad noo ducaysid oo degmada u ducaysid maadaama ulul amar tahay annaguna ilaahay waxaan kaaga baryaynaa cimri dheer iyo cibaado suuban iyo hawsha culus oo aad ku jidho in ilaahay kuugu fududeeyo maadaama aad safar tahay madaxweyne waxaan rabnaa inaanu kuu soo fududayno mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow aad iyo aad baanuna ugu faraxsannahay oo maanta ay noo qiiro gelinaysaa imaanshaha aan noogu timi waxaanu jeclaan lahay waqti intaa kasii dheer inaan kula qaadanno insha allahu waxay odayaashii iyo nabadoonnadiina yidhaahdeen madaxweynaha waxaad naga gaarsiisaa madaxweynuhu waa noo casuman yahay marka uu soo noqdo dangorayo casumaad baa u taal casumaad ehelnimo casumaad taageero casumaad soo dhaweyneed soo dhaweynteedii weli waa noo harsantay halka marka fariinta naga gaarsiibay nabadoonnadii yiraahdeen inta hadashaan ayaga hadli doonta aad iyo aad waa mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madeena cusub Puntland 2019 marka laga reebo caasimadda Puntland oo ka wada dhaxaysa Puntland meeshii koowaad oo ay timaado ama ay salmugeed u fariisato ama ay booqashadeedii socodkeedii u horeeyay ay ku timaado inaanu noqono baanu nasiib u yeelanay aad baan u soo dhaweynaynaa xukuumadda kuliheeda wasiirada si dhow baanu jecelnahay inaanu la shaqeyno haddaanu nahay reer dangorayo hay madaxweynihii Puntland waxaanu malaynaynaa madaxweynihii Soomaaliya inaad noqoto oo wax ka qabato Soomaaliya oo dhan wax ka qabato waayo waanu ku hanweynahay been sheegi maayo hadda urkaagii baa afkaaga hadda iskhilaafsan yihiin waa ku hanweyna inta musharaxa ahayna waxaan u jeclaynaa adigu noqoto waana noqoto ilaahay baa ka dhigay maaragtay waxaanu jecelnahay wixii kugu adag inaad wax badan oo wax yaqaan oo macquul ah baa jira dalkana jecel wax badan oo dhibaato ahina waa jiraan oo maaragtay ama dhibaatada jecel dawladda lugaha jiidaya wixii lugaha jiidaya dawladda ilaahna waa la cawaansaneen inay ka qabto annaguna waa u taaganahay inaanu maaragtay aanu wax ka qabanno hadii wixii laga qaban karo madaxweyne horta waxaanu niyeysanay oo aan noo tahay kii khayr inaata waanu ilaahay ka baryeynay oo codsanay kii khayr baa noo tahay taas taawi midda kale waxay tahay qodobka ugu horeeya waxaan codsanaynaa oo wax kasta ku xasili karaan hadday nugaal tahay hadday bari tahay hadday mudug tahay inta Puntland laga xukumo nabadgelyadeeda inay ku dadaashid haddaan nabadgelyo la helin oo la xasilin oo amni la helin wax suuroobaya ma jiro taasuna midaawo wax degmo qabo iyo mashruuc qabo iyo waxba qaban iyo midna ma jirto safar baa tahay allah ku sii ururiyo allahna ku soo ururiyo invitation-ka degmada danqori ee ku qabatay halka yaala markaas aad reer danqori wada hadlaysan hadii rabbi idmo war kale meesha badan ma yaala allah ku salaameeyo madaxtooyada ciqaasha gudoomiyaha degmada ku xigeenkiisa bahda saxaafadda lamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta la isugu duceeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacd salaam sidii ragga horeba u sheegayba waxaad nasiib u yeelatay reer dangorayow dawladda sidii loo dhisay madaxweynaha Puntlandna loo doortay caasimadda markii laga reebo degmadii koowaad oo uu soo ku degay ama uu maanta fadhiya inaad noqoteen waa wax aad u weyn waxaad niyeysataan hadda waxa qoodkan inaad ugu hormari doontaan haddii aan laydmo wixii kale aad Puntland la wadaagtaan maana wax dheer yar inaad yeelo doontaan haatana madaxweynuhu safar weeye wixii baahi ahaa iyo wixii duruufaana odayaasha hore ka hadlay insha Allah waxaan rajaynaynaa safarkiisa in Ilaahay u sahlo in Ilaahay u fududeeyo waxaan leenahay soo noqodo nabada golaha wasiirada iyo dawladda iyo dhammaan inta la socota haddana waxaan ku soo dhaweynayaa hadalka madaxweynaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh golaha baarlamaanka taliyaha ciidamada asluubta mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada odayaasha iyo dhammaan uqaasha halka fadhida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii farxad gaar ah ay tahay inaan
maanta halka ay noqoto meeshii ugu horreysay sida la sheegay doorashadii kadib aan imaado oo aan dadkeeda la hadlo waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa maamulka degmada soo dhoweyntii diiranayd ee wakhtiga badan qaadatay oo aan soo dibdhacnay weliba sidii wanaagsanaad ee u dhacday aad baan iniga mahadcelinayaa marka koowaad horta waxaan aqbalay martiqaadkiina ilaahay idankiis waxaan rajaynayaa haddii ay xeerku ahaan jira in la istaago oo la sii maro anu inaan habeen joogaan insha allah rajayn doona dangoroyo ilaahay idankiis waxaan si fiican baan u sheekaysan doonaa dardaarankiina iyo baahidiina ma ilaawinaho markaa halka marayay gabadhii halka ka buraanburtay weli buraanburkeed waa xasuustaa marka warkiina waa igu dhan yahay waana rajaynaynaa sida aan rajaynayna mar dhow aanan kana howlgalnay in waddadii mar dhow bilaaban doontaan qorshaheenu iyo haddii ilaahay idanka dhigo markaan xilka la wareegnay waa meelihii waxyaabihii ugu horreeyey aan xoogga saarnay bay ka mid ahayd waxay noo sheegeen insha allah dhowaan inay bilaaban doonto mashruucaas waana ku rajo weynahay inuu barnaamijkaas si dhaqsaa u bilowdo dangaroyo haddii waddadaas ay dhisanto isbeddel xooglaan ka filayna mid dhaqaale iyo mid horumar iyo mid koror bulsho intaba waa imaanaysaa waan dareensannahay goobta ay ku taallo dadkeedu siday difaaca iyo nabadgelyada uga qayb qaataan deganaanshaha puntland siday udubdhaxaad ugu yihiin dowlad jacaylka iyo siday u garab istaagaan intaasba waan uga mahadcelinaynaa sida la sheegay dhibaatada ugu weyna hadda dadkeenna haysata waa dhinaca amniga weliba magaalooyinkeenni waaweyn khatar baa ku socota dad nolosha dadkaan aan ogolayn ayaa waxay ku wadaan dibindaabi arrintaas in loo diyaar garoobo ayaan runtii inisii faraynaa haddii ilaahay idmo dowladduna ahmiyadda koowaad amnigay siinaysaa haddii ilaahay ka dhigo marka amniga ilaah baa idankiis waan si wada dhow uga wada shaqayn doonnaa warkayga waxaan u dibdhiganayaa soo noqodka iyo marka aan wada barino haddii ilaahay waa mahadsantihi